dhalinyaro ah ayaa aasaastay kulay taariikhdaas waxaan u dhaafi doonaa Cabdimaalik Askar ayaa ka hadli doona barnaamijkeena xiriirinta ah si wanaagsan ayuu u bilaaban doonaa waxaan ku hormareynaa aayadaha quraanka waxaan noo jeedin doonaa al-fadiilatu Sheekh Shucayb oo nooga yimid wadanka Masar Sheekh Shucayb waa nin dhalinyaro ah dhigta jaamacadda ku taala wadanka Masar مقالة القاهرة الفضيلة الشيخ شعيب فضلا كسدوو أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم Somali media waxay ku darsatay inay wadankiina tagto oo warar badan inoo keento runtii taas oo karti siyaada ah aniga hadda hawsheedu waa inaan furo shirka xafladda inoo furo waa inoo furay waxaan mahad celinayaa dhamaantiin sida wada soo qayb gasheen xafladan quruxda badan oo iyadoo Thanksgiving dadka Mareykanka dariskana ay Turku u fadhiyaan inaad inta guriyina ka timaadaan runtii aad nolol timaadaan halkan laakiin annaga laftigeena ma yareysano fish ayaan idinku soo dhaweyn doonaa hadii Allah wada haddii aan inta kaftanka uga baxo sida saaxiibkay uu ii xayisay runtii maad qaaray aad ugu mahadsan yahay sida aad ogtiin Somali media waxay jirsatay 10 sano sanad guuradii 10aad in 1998 anigoo gurigeyga dhex fadhiya oo telefishinka rogaya ayaa waxaan arkay TV waa furan kartaa markaas aan walahi waan u baahanahay in Soomaalida gobolka degani ay yeelato codkooda meel ay markaa ku dhageystaan af Soomaaliga sida daraadeed bay noqotay in aan training u galo waxay ahayd bishii la soo dhaafay March this year 1998 March ka bacdina trainingkii aan qaatay waxay noqotay in markaa ay siiyaan half an hour kaas oo markaa Soomaalidii deganeed gobolka Minnesota ay aad u yaray xaafado dhowran ay ka deganayeen waxay markaa noqotay in dhalinyaro badan ay ku soo dhiiradaan oo markaa ay noqoto wartay wadanka kaliya xamaali ma noqon karnaa waxaynu ku biirsan karnaa inaynu markaa wax ka sameysano Somali TV oo markaa dambe aan anigu la joogay deednaan ku soo wareegay Somalia magaceedu waa isqotay mid waa ii sheegaya anigu markaa kamarada hor fadhiyo kaliya laba wiil ama saddex qof iga duubayaan libaax baanay laakiin markay noqoto dad horteeda yimaadaan hadalkayga ka garan sawan maanaya waxa fadhiya anigoo ka wakiil ah ama ku hadlaya magacooda bahweynta isboortiga Soomaaliyeed ee Minnesota waxaan hambaliyo iyo bogaadin ku aadan 10 guurada Somali media u gudbinaya waxaan leenahay naga gudoomataa anigu aan u leexdo markaa intaa kadib xaggii isboortiga sawiraya asagoo qalin jibinaya markaas bachelor ayuu qaadanay markaas wuxuu yiri sankariyo inta aniga isawiraysi anoo bachelor qaadanay saaxiib oo adama iskuul aad si aan adigana maalin kamid ah aan ku sawiro maalintaas ayaa bilaabay iskuul markaani waxaan noqotay markaa associate-kii Central College ka qaatay Cabdimaalik dhiirigelinta uu siiyay inaan ku qalin jibiyo haddana waxaan diyaarinayaa bachelorti meediyaha ugu qaalisan ugu qiimaha badan runtii haddaan la isxaqireynin Soomaalida Minnesota joogta ama Soomaali meel kasta oo ka mid joogta ay garanayaan dhaxalkeeda iyo waxay abaal u leedahay waxaan maqlaayadoo la leeyahay wariyaa boqol bixinaya Soomaali media boqol baad sheegaysaa qof kasta halkaan jooga oo wax garanayo oo Soomaali ah oo damiir leh xaq wuxuu u leeyahay kun inuu dhiibo aniga ana bilaabaya insha Allah biidhnilaahi kariim مثلا نبى سؤال ما نوجه وحنا ويري تيفيان إيبينايا
تيفيقو محارام بمسوا حلال السؤال في عن الزويديو تيفيقو وواح مركي وناق لو استعمالي خيرات كهليسيد هذه حمان لو استعمالي أنا أدم بكهليسيد مركي ميديو سيدو كلاوي لكن واحد عم سنة هاي ميديو هو إسلام كان صعنا يا صار سعوتان وحال يرهدا إسلام كو ودين تا هذا يعني دتك أدو قادنا يعني waxaa bilaabatay in meediyadu ay qayb ka qaato oo maxaan ku radaa ay qaybtii maxaan ku la socotaan raadiyaasheennii maxaan ku radaa jiri jiray iyaga ayaa soo baahin jiray marka waxa quraanayso waxay raadiyowga qoraalladeenu way yaraayeen marka waxa la soo baahin jiray gabayadii taariikhdii hore Soomaad garan oo aynu lahayn waxa lagu bari jiray iskuulada iyo dugsiyada sida aad la socotaan oo mudanayaashii iga horreeyay ka hadleen warbaahinta lafteedu maxaan ku radaa waxay soo maraysay marxalado kala duwan bay soo maraysay xigay laga soo gudbay in baahin la sameeyo oo waliba warlayaasha la isticmaalo waxa la yiraahdo wireless ama idaacadda raadiyaha la isticmaalo waxa ku soo xigay TV-yada waxa ku soo xigay ugu dambeyntii internetka ama online-ka in la adeegsado marka tadawurka warbaahintu ay soo samaysay xilli kastaba waxa uu lahaa heerar buu soo kala maray khasab marka ma aha waxaan uga jeedaa marka waan u samaynayaa tixraaca yarka khasab ma aha in raadiyo la isticmaalo khasab ma aha in TV la isticmaalo khasab ma aha in qoraalka la isticmaalo hadba waxaa la isticmaalayaa means to pass on the communication kaas macnihii si fariinta warbaahinta loo gudbiyo oo looga gudbiyo qof oo loo gaarsiiyo qof kale أنا أعلن يا عبدي مالك زكريا يا عبدي سومالي ميديا طبعا سنة الجولة طبنات عاوة وده بلدقية سيدو كلا دمانتي روح بدل كم وقتها فقرا عاوة سوتي مادين جارهان يدو أي حين مالين تركي دلك أهل لقى عنيو لكن فيليو إن سي عبدي مالك ووشة ما أنت إنا تشيكن عمتين عاوة نفيش ونغضنا so that's really good news كانت عاوة نيجي اللي سيء وحي تهاي كانت ganacsiga uu ka qaato gobolka aan degannahay iyo media xiriirka u dhaxeeya wuxuu yiri nimanka wax duubo wax waa sheegayaan waaga ha sheegina yaana la dhihin wax la arkay waa sheegaynaa wuu bogto waxa sheegid u baahnayna waa iska jiraan saxaafaddu waxay leedahay runhaantii dhibaatadeeda iyo faa'iidadeeda labadaba laakiin hadba sida loo isticmaalo waxay ku xidhan tahay bulshada marka warka loo soo tabinayo Soomaalida waxa mar walba u ah calaamad muufa nin baa cunaa leeyahay konton iyo konton laba muuf ninkiiba macnaha waa saxankayga qari waa inay dheeraato way baash markii baash ay cuneen labadoodii oo dhargeen mid kamid ah gaari dardaray markaas kii kale ooyin la fariisto maxaa la ooynay asu ninka hadintee inta muufu ku maqana la yaabano yir gudiis dilo kala miihi nin comedian marka kuma fiicna waa maadsantiin Somali media shaqada qabteen qof kasta sheegay dameel oo looga baahan yahay hadal waxba ka bataro alla caawiyo casho wanaagsan habeen wanaagsan Abdi Aar iyo all media dhan artist ka raga ka jooga ciyaartooyda caaw ma diyaarsan iga raalaada waxaan leeyahay guuleysta Somali media ha guuleysto أنا وحكالنا وحبرشنا وحنا ربع رمتي إن نعاون نقطة تاريخ هذا ذوق بكرتين واحد وحنا هذا جعل رمتي عروض الصوماليات وذلك كان كل بيتسن حاجة وحبرشنا